shacabka Puntland waxaan leeyahay arrintaas waa in loo istaagaa oo laga mir dhaliyaa. waad ogtihiin dawladdu way ku dhawaaqday wayna soconaysaa. waxaa kaloo jira caqabado hadda soo baxaya. raggii hore oo keeni jiray ninka ama xubinta ay iyagu keensan jireen oo qoran jiray hadhowna dhiil la geli jiray, dadkaas way shaqaynayaan. waxaa la rabaa in dadkaas laga digtoonaado oo reer Puntland ka digtoonaato. acuudu billaahi min ashaydaani arajiim. bismi illaahi araxmaani araxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. suma salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. waxaa sharafii ah inaan imaado xafiiska STN oo aadka u qiimaha badan. shirkayga jaraa'idna maanta wuxuu daaran yahay hawl soo socotay muddo aan ka shaqaynayay oo ahayd dardargelinta qof iyo cod Puntland inay gaarto oo meel fiican marayso. markaygii labaadna maanta aan kaga hadlayo waxaan rabaa inaan halkan hambalyo uga diro. maanta jimco wanaagsan, ilaahay raxmadiisi waa la helay. meelaha ay u dhiman yihiin ilaah waxaan ka baryaynaa inaynu helno. dadka dhibaataysan oo roobabku waxyeeleen in loo diyaar garoobo oo la ilaaliyo oo dadka ilaahay wax siiyey ay ilaaliyaan. intaas waa intaas. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo. waxaad ogtihiin in loo dhaqaaqay doorasho qof iyo coda oo maanta Puntland ay u dhaqaaqday. waa guul u soo hoyatay Puntland, waa horumar u soo hoyday Puntland. waxa weeye waa hawshii hore oo 66 qof oo 4 oday soo xuli jireen oo lacag lagu bixin jiray, iyaguna lacag doonan jiray, halkaasna ay ka dhalan jireen waxaan shacabku u baahnayn ama ayaan malaynayn inuu soo baxo. maanta waxay taagan tahay qof iyo cod in la helo. ilaahayna naga raro 66 qof oo meesha lagu xareynayo. shacabka Puntland waxaan leeyahay arrintaas waa in loo istaagaa oo laga mir dhaliyaa. waad ogtihiin dawladdu way ku dhawaaqday wayna soconaysaa. waxaa kaloo jira caqabado hadda soo baxaya. raggii hore oo keeni jiray ninka ama xubinta ay iyagu keensan jireen oo qoran jiray hadhowna dhiil la geli jiray, dadkaas way shaqaynayaan. waxaa la rabaa in dadkaas laga digtoonaado oo reer Puntland ka digtoonaato. diyaar baan u nahay. waan ogsoonnahay meelmadow inuu jiro. waan ogsoonnahay dadkii ku qaraaban jiray inay warwareegayaan oo leeyihiin ismadmadoobeynayaan. wax ka jiraa ma jiro. annaga reer Puntland baana la yidhaahdaa. nin reer Puntland haddee nin ka sarreeya inuusan jirin waad og tahay. Soomaali buu ka yahay. ninka awooddaas leh baa annagu nahay. cid tunka loo taagi karo ma nihin. waxaanu rabnaa hawsha inaad ku dhaqaaqdid oo ay toddobaadkaas gudihiisa ay hawsha caasimaddu bilaabato. annagaa keenayna shacabkii reer Puntland oo isku duuban oo u diyaara inay dalkooda iyo dadkooda iyo codkooda meeshii ay rabaan ay geystaan. weeye dadkaani annagu siyaasiyiintii u dhalatay dalka baanu nahay. xogaan ognahay. dad badan oo cagajiidayaan waa ognahay. laakiin gacan bira baanu ku qabanaynaa. annagaa ogsoon wayna soo bixi doonaan. waxaana u malaynayaa inay cagacadlaan kaga carari doonaan. hawshaas haddii ciddii isku teerigaraysa inay qof iyo cod ummadda maanta ka joojiso oo ay ku laabtaan in maaragtay la gaaro 66dii. dadka danaynaya waa dadkii qowlaysatada ahaa, dadka dhiiggiisa miiran jiray. halkaa intaasaan leeyahay. waxaad ogtihiin reer Puntlandow dhallinyaradeenii aqoonta lahaa jaamacadaha ka soo baxday inay maantay qaybina baddi cuntay oo tahriib galeen, qaybina ay waxbarasho la'aan meeshii u taagan tahay
waad ogsoontihiin 66 kan qof markii la geeyo waad ogtihiin oo waxa weeye hadda nin isagu lacag isku soo doortay oo lacag isaguna doonaya inuu wax ku qabanayo waad ogtahay xaqiisii buu raasanaya qofna u danayn maayo waa dhaweyd waxaan wareystay nin wasiira ninkii wasiirka haddaan wareystay wuxuu yiri warbali warambaan wuxuu warnay dhibaato ay haysa baarlamaankii la doortay iyagoo koox ku soo galayaan hebeliige hadda diidana madaxweynaha u tagayaan waxay leeyihiin madaxweyne qofkan qof shaqeynaya ma haday doonaan ba maartay xasaanada siin maayaan dadka noocaasa waa inuu ka guuraa waa cudur kansara waa cudur ina soo galay ilaahayna ka saaro taasaan leeyahay waxaan leeyahay dadka ku qaraabanaya oo leh oo gobolada maqan Puntland wax maqan ma jiro waxa weeye Soomaali waxa weeye Sool iyo Sanaag iyo Cayn ma maqna way joogan mas'uuliyiinteedii way joogan wayna og yihiin cidii dhibka u geysatay way og yihiin cida burburka ku haysa way og yihiin in loo qeyr dhalaamiyo cidaan maartay aan wax u qabanayn ma aha qeyr dhalaan been ayaa la idin dirin cid in ka badan ma jirto cod ahaan iyo aragti ahaanba xisbiyaynu furan karaa xisbiga lagu soo bixi karaa hadduu doono ama raas casayr ha jooga ama raas karboon ha jooga ninkii reer Puntland oo ku soo baxa cod ku soo baxa ninkaas aan dooranayna isaga aan ku qanacsanahay sababtoo ah codkayga baan ku geysanay waxaan leeyahay arinta reer Puntland waa baaqi aan diray inii soo diray haddana maanta cod dheer iyo cod dhow waxa in leeyahay arintaasu waa inaynu ku dadaalaa oo meel isaga soo jeesana oo cidda aynu isniraahno waxayni qaban mayso aynu gacan biraas kaga qabanno madaxweynahana waxaan leenahay waa baaq waa amar waxa weeye madaxweyne ku dhaqaaq toddobaadka gudihiisa ka bilow caasimadda waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa mas'uuliyiintii wasiirkii Juxa uu kamid ahaa iyo wasiiradii kale oo la geeyay shaqada dardar geliya wasiir Juxa gaar ahaan waxaan u leeyahay meesha adaa maaragtay hadeer xubin qorshe ahaan adaa u leh wasiir ahaan xubin meeshaada wasaaradda ka shaqeysa dardar geli gudiga waxa weeye gudigiina waa inay shaqada bilaabaan dhaqdhaqaaq waa yar yahay waqtigu waa yar yahay waxaan rabnaa inaan la shaqeyno wasiir Juxa waxaan ogahay inuu yahay nin go'aan adag go'aankiisana bir ku ah annaguna haddaanu nahay siyaasiyiintii iyo odayaashii iyo waxgaradkii reer Puntland gacmaha ayaanu kugu garab joognaa waana ku garab joognaa arintaasna ku dhawaaq shirkayga jaraa'idna maanta wuxuu daaran yahay intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu